الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. soo dhawaada asxaabta qaaliga baarak allahu fiikum fiidiyogan insha allahu tacaala waxaynu ku soo qaadan doonaa qaari ka mid ah quraada caalam alislaami ugu caansan looguna jecel yahay dadkeena soomaaliduna runtii ay aad u dhageystaan oo ay codkiisa jecel yihiin waa sheekh axmed alcajami. sida loo jecel yahay waxaad sawirataa gabadh falastiiniyada ayaa markay geeriyoonaysay ayaa waxay ku dardaarantay markay dhimato kadib inaaskeeda markaasi laga daaro qiraa'ada uu akhrinayo sheekh axmed alcajami. waa jacaylka iyo tacalluqa iyo saamaynta uu sheekhu uu ku yeeshay. insha allahu tacaala waxaynu ka warrami doonaa taariikhdiisa oo kooban, qaabkii uu qur-aanka kariimka ku xifdiyey iyo sheekhu halka uu ku dambeeyey ee uu ku sugan yahay. soo dhawaada baaraka allahu fiikum. sheekha magaciisa oo dhammaystiran waa axmed binu cali binu maxamed aal sulaymaan alcajami. waxa uu ku dhashay magaalada khubar 28 bishii 1968. sheekhu waxa uu ku barbaaray qoys ahludiin ah. aabihii waxa uu ahaa imaam masaajid, sidoo kale waxa uu lahaa xamlo xajka iyo cumrada ah, yacni dadka reer khubar ayaa waxa uu geyn jiray oo u kaxayn jiray xajka iyo cumrada. sheekhu xifdiga qur-aanka kariimka wuxuu bilaabay isagoo ay daadiisu aad u yar tahay. waxa uu bilaabay ku dhowaad isagoo ay daadiisu tahay 5 sannadood. sheekhu waxa uu yidhi isagoo ka warramaya, aabbahay waxa uu noo kaxayn jiray cumrada iyo xajka markaasi, kadibna masjidullaahi alxaraam xalaqaadka xifdiga qur-aanka kariimka ah ayaanu ku biiri jirnay oo halkaasi ayaanu qur-aanka kariimka ku xifdin jirnay. sheekhu dugsigiisii hoose waxa uu galay dugsiga la yidhaahdo almuxamadiya. dugsigiisii dhexena waxa uu ka baxay dugsiga la yidhaahdo zubayr binu cawaam. dugsigiisii sare sheekhu waxa uu ka baxay dugsiga la yidhaahdo thaanawiyatul khubar, sekandariga markaasi magaalada khubar. sheekhu xifdiga qur-aanka kariimka ah waxa uu ka kala go'ay intii uu ku jiray dugsiga dhexe, waxaana uu yidhi sheekhu waxa isku beegmay wakhtigii uu aabbahay cimrada noo kaxayn jiray oo inta badan ku hagaagi jiray markaasi wakhtiga aanu iskuulka fasaxa nahay. halkaasi ayaanu markaa qur-aanka kariimka masjidullaahi alxaraam ku xifdin jirnay, laakiin markii dambe waxa isku hagaagay waxbarashadii iskuulka oo socota iyo wakhtigii cumrada. sidaa awgeed ayaa uu xifdiga qur-aanka kariimka ah iiga kala go'ay. sheekhu xifdiga qur-aanka kariimka waxa uu dhammaystiray oo uu dhammeeyey intii uu ku jiray markaasi dugsi sare iyo jaamacadda. waxaana uu yidhi sheekhu isagoo ka warramaya, qur-aankii aan xifdiyey yaraantaydii wakhtigii aan yaraa
iyo qur'aankii aan weynaanta ku xifdiyey intaan jaamacadda iyo secondary-ga aan ku jiray qur'aankii aan yaraantayda ku xifdiyey inta badan igama baahda buu yidhi sheekhu inaan muraajaceeyo laakiin qur'aankii aan weynida ku xifdiyey inta badan waxa uu iiga baahdaa inaan dib u muraajaceeyo sheekhu jaamacadda waxa uu galay jaamacatu imaam maxamed binu sacuud kuliyaddeeda shareecada qaybteeda markaasi ku taalla magaalada ixsaa waxaanu ka qalin jabiyey 1991 sheekhu waxa uu ka mid ahaa dhalinyartii u baxday waddanka Afghanistan waqtiga uu ka socday dagaalkii u dhaxeeyay Afghanistan iyo markaasi Ruushka oo ku soo duulay waqtigaasi ayaa sheekha iyo dhalinyar kale oo Sacuudi ah ay halkaas u baxeen oo ay ka soo dagaalameen qaar ka mid ah dhalinyartii la socotayna halkaas ay ku shahiideen sheekhu waxa uu ka waramaa qiso runtii aad u xanuun kulul oo uu goobjoog ka ahaa oo halkaasi ka dhacday waxa uu yidhi mid ka mid ah walaalaha Afghanistan ayaa ehelkiisii oo dhan waxa uu isugu geeyey guri kadibna waxa uu u baxay inuu u doono cuntadii ay cuni lahaayeen intii uu ka sii maqnaa ayaa waxaa ku dhacday duqaymooyin halkaasi ayaa dhammaan ay ku geeriyoodeen markii uu soo noqday ayaa uu arkay waxaanu markaasi tiriyey kalimaadkan تقول غالتي دا درخوك خون شهيدون قل شد أفغانستان الله أكبر الله أكبر هم سنگر بشنو في يومي من رو غير انتقامي من رو الله أكبر الله أكبر kalimaadkan iyo macnahooda sheekhu isagoo ka waramaya ayaa wuxuu yidhi waxay ka hadlayaan qiimaha ay leedahay iyo fadliga iyo wanaagga ay leedahay qofku inuu ilaahay dartii uu u geeriyoodo oo u dhinto sheekhu shahaadadiisa masterka waxa uu ka qaatay jaamacadda ku taalla waddanka Pakistan ee Lahore sheekhu sidoo kale mar dambe ayaa waxa uu qaatay shahaadadiisa doctorate isagoo ku qaatay markaasi risaalada uu qoray minnatul aliy alqadir fi sharxi turuq tafsir sheekhu markii ugu horeysay waxa uu imaam noqday isagoo ay daadiisu tahay 17 sanadood 1403 waxa uu imaam ka noqday masjid yar oo ku yaala magaalada Khubar oo la yiraahdo Izza Abdissalaam intii ka dambeysay sheekhu waxa uu imaam ka noqday masjidka jaamica ah ee magaalada Khubar sheekhu waxa uu yidhi inaan imaam noqdo qaari noqdo oo markaas ay mawhibadaydu soo baxdo waxa gacan weyn ka geystay buu yidhi walaalkay iyo aabahay aabihii wuxuu geeriyooday isagoo ay daadiisu tahay 17 sanadood waxa uu yidhi waxay ahayd geeri aad u naxdin badan aad ayaan uga naxay oo aan u murugooday buu yidhi aabahay wuxuu ahaa madrasad aan ka bartay waxyaabo fara badan intii uu noo kaxayn jiray xajka iyo cumrada waxaan ka bartay buu yidhi xaaladaha adag sida looga gudbo sidoo kale waxaan ka bartay buu yidhi sida dadka loola dhaqmo in laab waasac ah oo markaasi sabir iyo akhlaaq wanaagsan dadka lagula dhaqmo marka wuxuu yidhi wuxuu ahaa jaamacad aan waxyaabo badan oo noloshayda ah aan ka bartay buu yidhi aabahay وإما حزن وإما كذا فذاك اليوم قلت أريد أن أشتكي الذين حبسوني عن ولدي عمر ولأن هذا الشكوى مني ومنهم فكتبتها يعني بالشعر الشعبي نبطي ليس فصيح تمام فقلت بشتكي عمور من خل دلوع من كلامه صارت أيامي ضياع بشتكي عمور من خل دلوع من كلامه صارت أيامي ضياع ونس بقلبي عذابي في الضلوع والسبب عمور مزيون الطباع ونس بقلبي عذابي في الضلوع والسبب عمور مزيون الطباع nashiidada sheekhu waxa uu qaaday inankiisa Umar oo markaasi la fadhiya majliskaasi waxaad moodaa inay isleeg yihiin marka sheekhu waxa uu guursaday isagoo ay daadiisu yar tahay wuxuu yidhi sheekhu waxaan guursaday anigoo ku jira markaasi secondary-ga sheekhu waxa uu leeyahay 6 caruur ah sheekhu waxa uu baxay safarro aad u fara badan oo dacwadeed caalamka islaami iyo markaasi wadamada gaalada ee Yurubtaba waxyaabihii ugu cajiibka badnaa intuu safarada iyo dacwadda ku jiray waxa ka mid ah wuxuu yidhi sheekhu anagoo safar dheer soo galnay oo habeen oo dhan markaad diyaarad iyo markaad tareen saarnayn oo aan islahaa markaad gaadhaan halkii laydinku tala galay aad si fiican u nasatid oo aad seexatid ayaa wuxuu yidhi markii aanu soo gaarnay magaaladii aanu ku qornayn ayaa waxaa tareenkii markaanu ka degnay waxaa naga hor yimid dhalinyar oo na soo dhaweeyey oo na qaabilay oo majliskii iyo muxaadaraad iyo quraan akhris
waxa uu yidhi waxaa lay sii daayey oo lay fasaxay uun 11 habeenimo. Sheekh Axmed Al-Cajami runtii waa sheekh aad u furfuran oo markaasi muxaadaraadkiisu ay ku saameynayaan sida quraanka markuu akhrinayo codkiisu ku saameynayo ayaa muxaadaraadkiisuna ay ku saameynayaan iyo shakhsiyadiisu waa sheekh runtii farxaan ah oo markaasi qalbi furan oo kaftan badan. أسمعك عبد الأسمر قلت له جزاك الله خير ما قصرت. دقديد كتاب حياتي يا عين قلت يا أخي ما قصرت بارك الله فيك. طب أم كلثوم لا تغلى يعني شنو يا أخي جزاك الله خير بارك الله فيك ما قصرت. طب حليم يعني لا ما تبقاش حنبلي يعني الله أكبر أنت في مصر الحين مش في قلعة الوهابية عدل حليم علشان خاطري. قلت يا عمي يا عم الله يخليك أنا يعني هذه اعفيني منها إن كان عندك يعني قرآن ولا أحاديث ولا بتفتح لنا شيء. أغريتني لأشرب فسأشرب. ايوه ما ودعت المشاهدين بعد ترى والله يا أخي الحلقه لم تنتهي بعد. طيب خليني أشرب وأذوق وأودعهم من قلبي. طيب طيب ما مشكله الله يحفظكم. ما شاء الله تبارك الله يا أهل المجد الله يحفظكم. جميلين في قناتكم جميلين في ديكوركم وجميلين في تقديمكم وفي هذه الكوكبة الجميلة من الأخوة المصورين والمخرج والكادر كلكم. أنا أقول سامحوني إذا طلعت مني كلمة إن أخطأتها من نفسي والشيطان. هذا الشيخ منول يهي مستوى ودنتي شيخ هو نول يهي إلهي سبحانه وتعالى عمرك هو ديريو waxa uu ku nool yahay wadanka Sacuudiga markii aan sheekha baaray waxa jira markaasi bogog badan oo magaciisa lagu sameystay laakiin sheekhu waxa uu leeyahay bog rasmi ah oo Facebook iyo Twitter-ka ah isagoo ka waramaya oo sheegayana waa kan. هذه الوقفة القصيرة عبارة عن توثيق لصفحتي في الفيسبوك وكذلك التويتر. هنا بارك الله فيكم الصفحة الرسمية AHM. haddaba waxyaabaha uu sheekhu soo dhigo waxaa ka mid ah markaasi ducadani oo kale uu leeyahay Allahumma 100,000 min al-malaa'ikati murdifiina li'ibadika al-mustad'afiin. Ilaahu waxaad ugu gargaartaa 100,000 oo malaa'ig markaasi adoomadaada mustad'afiinta ah. Waxaan filayaa sheekhu inuu u jeedo markaasi reer Gaza. sidoo kale waxa uu yidhi qof haddii markaa qof kale uu markaasi khudlaan ku sameeyo oo uu hoojiyo ayaa uu la dhintaa oo aad uga xumaada yacni bal waxaad ka warantaa cidda ay ummadda oo dhani ay khudlaan ku samaysay oo ay hoojisay marka waxa uu u jeedaa walaalaheen reer Gaza. sheekha markaasi markaad qoraaladiisa eegto waxaad dareemaysaa markaa inay iska jiraan culaysyo waqtigan oo boqortooyada Sacuudiga culimo fara badan ay xidhan yihiin qaarkoodna aan loo ogolayn inay hadlaan iyo inay safraan sidoo kale marka Allah subhanahu wa ta'ala xifdiyo cimrigana ha u dheereeyo inagana ha inaga dhigo ku cibro qaata. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.